markaan soo koobo weedhatan aqoon-yahanka aan rabno waa inuu noqdaa qof masdarka cilmiga saxiixa ah ee ima kitaabullaahi almaqru'a ama kitaabullaahi almanduura qof kayd ka haysta waa inuu noqdaa qofka wax naqdin kara kritika samayn kara waa inuu noqdaa qof ummadda tawjiihin kara oo cultural revolution samayn kara laakiin dhibtu waxay taagan tahay innaga markuu aqoon-yahankeennu gadaasha ka maro odayaasheenna iyo jiilkeennu rabnay inaynu beddello waxay dhibtu taagan tahay markay aqoontu xagga dambe ka marto taxadiyaadka aynu leenahay sideedaba qofka bini aadamka challenges baa ka hor yimaada caqabado noloshu waa caqabado aqoon-yahanku hadduu aqoonta caloosha ka horu mariyo aqoon-yahan maaha maxaan cunaa haddaad u noolaato hadday noqoto aqoontaydu maxay goysaa suuqa marketka maxaan ka gooya haddaanay aqoontu xishood iyo cilmi iyo wax qiimaynaynin waxay qiimaynaysaa uu noqdo see lacag lagu helaa walow badda ku dhacnee qiimo male markaa maaha aqoontii cultural revolutionka samaynaysay maaha hadday aqoontu noqoto aqoon-yahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo sultadu iibsan karto dowladuhu laaluushi karaan oo iibsan karaan aqoon-yahan maaha hadduu aqoon-yahanku noqdo qof qabiilku iibsan karo 10 oday intay ku yimaadaan yidhahdaan reerku saasuu damcay waa lagu iibsaday hadduu aqoon-yahanku noqon karo qof la bajin karo oo ama sultada jirtaa bajin karto baqagelin karto ama cultureka bulshadu ay leedahay ee xun cultureka san waa inuu ku baqageliya waa inaad ixtiraamtaa inuu ku baqageliya maaha laakiin cultureka liita uu ku baqagelin karo aqoon-yahan maaha ama aqoon-yahankaan rabnee wax beddelayay maaha sida uga dhibtayna haysata caalamka saddexaad waxaa ka mid ah aqoon-yahan badan oo ay lahayd wuxuu noqday mid hungurigu wado ee aan aqoontu wadin aqoon-yahan badani wuxuu noqday mid aan ethics lahayn mid aan akhlaaqiyaad lahayn ee maxay xagga shilinku jira uun jira aqoon-yahan badani wuxuu noqday innagu dhaqankeenna ka soomaali ahaan ka umma soomaaliya dhib daakhiliya baynu leenahay dhib gudeed iyo dhib khaariji ah bini aadam walibana labadaa dhibood buu leeyahay dhib daakhiliyaynu leenno oo ah inaynu qabiil u qaybsannahay siyaasaddeennu waa qabiil mararka qaarkood waxaan is idhaahdaa axsaabta siyaasiga aynu leenahay maalan talow haddii ragga u taliya la kala bedelo reeruhuna sooma kala guureenu haddii nimanka madaxda ka inta mid la qaado xisbiga kale la geeyo reerkuna waa uun xagga kale ka soo wareegi lahaa waayo haddaynan ideology haddaynan waxaynu wax ku qiimaynayna rumaysanayna qof rumaysannahay ma aha inuu qofkani xun yahay anugu kama hadlayo laakiin waxa weeyaan haddaynu shakhsana qof daba soconno aynan mabaadi' daba socon yaa aragti qofka in la raaca wax xun maaha laakiin qofku waa inayn waxaan ku raacsanaya mabaadi' iyo aragti tahay laakiin hadday noqoto inaannu isku reernahay inaan ku daba socdo dee aqoon-yahana sheegana magac kale sheega markaa hadhow ha odhanin literate man baan ahay ama learned peoplekan ka mid ahay ama scholar baan ahay ama academic baan ahay ama intellectual baan ahay erayada tirada badan ee af ingiriisiga meesha laydinku sheego ha sheegan wax kale sheego nin reer hebel aan ahay iska dheh odayadu saasay rumaysnaayeen waxaan inooma sheegtaan waa suldaan waa caaqil waa nin reer hebela reer hebel waxay ku go'aan buu ku go'aa khalaas isaga kamaba qasnayn marka horeba duubkiisuu sitay laakiin haddaad adigu aqoon sheegatay aqoontu waa inay wax soo kordhisaa waa inay cultural revolution samaysaa waa in bulshada aan bedeli karnaa